cabdirasaaq oo aad baad u mahadsan tahay doorashada Mareykanka hadda waxaa bilaabatay in isteediyadii ugu horeeyay lagu dhawaaqo natiijada waana kuwa ku yaala bariga iyo koonfurta wadanka Mareykanka ilaa hadda natiijadooda waxaa lagu dhawaaqay 14 state waqtigan aan kula hadlayo goboladaasi waxaa ka mid ah gobolka Florida, Indiana, Kentucky, Vermont, Massachusetts, West Virginia, isteedyadaas ayaa runtii lagu dhawaaqay marka wadankani waxaa ka jira nidaam la yiraahdo Electoral College oo ay dejiyeen odayaashii aabayaasha wadanka loogu yeero ee dastuurka wadankan qoray marka isteedyaduna waxay ku helayaan Electoral College-ka population-ka state-kaasi ku nool sida loo kala dad badan yahay ayaana loo kala Electoral College badan yahay 538 ayay ka kooban yihiin Electoral College-ka guud ahaan wadanka marka madaxweyne qofka noqonaya waxaa laga rabaa inuu ku guuleysto 270 kamid ah 538 Electoral College ee guud ahaan wadanka uu leeyahay marka isteedyada guud ahaan marka codadkooda la soo tiriyo ayaana runtii la isu geynayaa Electoral College-ka dabadeedna qofka ku guuleysta 270 Electoral College ayaa wuxuu noqonayaa oo lagu dhawaaqayaa inuu yahay madaxweynaha la doortay ee wadanka Mareykanka state walba Electoral College-kiisa waxaa loogu kala guuleystaa marka codadka la dhiibto la soo xiro ee la tiriyo musharaxa ugu badan ee dadka ugu badan hela ayaa wuxuu wada qaadanaya Electoral College-kii uu gobolkaas lahaa dhammaantood ayuu wada qaadanayaa inta badan isteedyada Mareykanka saasay u shaqeeyaan marka laga reebo laba state oo kala ah state-ka Maine iyo state-ka la yiraahdo Nebraska labadaas state waxa weeyaan waxa loo kala qaataa sida loogu kala guuleysto qof walba intuu helay oo codada ayuu wuxuu qaadanayaa Electoral College-kii qaybtaasi ay lahayd waana isteedyadaasi shuruuc gaar ah iyagu ay leeyihiin laakiin isteedyada kale waxa weeyaan sida loogu kala guuleysto oo qofka codadka ugu badan ka hela ayaa dhammaan wada qaadanaya marka doorashadu wali waa socotaa isteedyada gobolada dhexe iyo kuwa galbeedka wali codbixintii ayaa socda kuwii ugu horeeyay ayaana qaybo kamid ah ay soo xirmeen codtirintii ayaana ku socota marka kuwa kala soo xirmaana natiijada ayaa lagu dhawaaqi doonaa marka sidaas weeyaan wixii kale soo kordha waa ka wada soconaynaa haddii aan leeyahay